howlgalla ay wadeen ciidanka maamulka Khaatumo ee dhanka amniga u qaabilsan oo ay dhawaan ku soo qabteen gaari la geliyay deegaamada Khaatumo gaarigan oo lagu soo qabtay deegaanka Qabri Bayax oo ka tirsan gobolka Sool ayaa saaka waxa ka warbixiyay qaar ka tirsan mulkiilayaasha gaarigaasi in gaarigooda wax dambi aan lagu helin una sidin waxyaalihii lagu soo eedeeyay ay ka mid ka ahaayeen inuu saanad military siday mulkiilayaasha gaarigan ayaa waxay ka codsadeen maamulka Khaatumo in ay ligelin ka siiyaan ee dusha laga saaray in uu gaarigoodu iyagoo doonaya inay u cadeeyaan shacabka Khaatumo in gaarigani uu leeyahay nin mas'uul oo deegaanka magac weyn ku leh ahna nin caaqil ah doonayana in la cadeeyo gaarigani inuusan wax dambi ah ku lahayn gudaha Khaatumo uuna ka shaqeeyo deegaamo aad u fara badan oo Soomaalidu degto anagoo ah mulkiilayaashii gaariga halka taagan ee rarka sida anagoo ah mulkiilayaashiisii oo anigu aan ka mid ahay odayaalka gaarigaas uu leeyahay cali maxamed kaarshe oo ah nabadoon waxaan u sheegaynaa oo la gaarsiiyay dusha laga saaray dambi uusan horena u gelin haddana ku jirin dibna u geli doonin waxaan u sheegaynaa dhul badan arrinta la gaarsiiyey gaariga arrintiisa la gaarsiiyey dibad iyo daakhilba gaarigaasoo ka yimid gaalkacyo oo rarkaas sida waxaanu u sheegaynaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa been fakatay runuma gaadho intii la gaarsiiyey beenta la gaarsiiyey waxaanu doonaynaa runta in la gaarsiiyaa waxa lagu eedeeyay waxa weeye rasaas buu siday hub buu siday wuxuu u siday haddii Ilaahay ku roon yahay dal kale deegaanka ahayn waxaa lagu qabtay meesha la yiraahdo magaceeda Karin Dabiil weyn yaa lagu qabtay gaariga waxaa qabtay Khaatumo maamulka Khaatumo waxaa lagu baaray higlada meesha la yiraahdo ayaa lagu baaray gaariga dhulka la dhigay gaariga waa la baaray ummad badan baa isugu timid gaariga waxaa ku cadaatay wixii lagu sheegay in laga waayay ee uu ka yahay ceebka saliin gaarigaas saraakiishii ummadii joogtay wadanka oo dhan iyaga oo qoladii gaariga qabsatayna loo keenay been loo keenay oo loo geeyay been sidaa darteed dadku waad garan karaysaan soohdin bay joogaan soohdintooda de xaq bay u leeyihiin inay ilaashadaan laakiin dabcan waxaanu iyagu ay ka gaabiyeen oo aanu doonaynay maadaaban gaarigu uu yahay gaari nabadoonku uu leeyahay oo deegaanku leeyahay oo la yaqaano gaari la yaqaana oo ummadda ay taqaanasay u baahan tahay in ay haddii laga waayo gaariga dambigii lagu eedeeyay haddii laga waayay in ay geliyaan iimaylada iyaguna raaligelin ay ka bixiyaan sidaa darteed annaga oo ah mulkiilayaashii gaariga waxaa annaga raaligelin noo ah annagu aan isku laasuminaynaa waxaa la yidhi midho nimaan cunin ma qabtaan sidaasaanu annaguna isku raaligelinaynaa ummaddii warka kan uu gaarayna haddee been fakatay runuma gaadhee in runta la gaarsiiyo intii beentu ay tagtay wasalaamu calaykum cabdikariin olol S24 TV magaalada Tukaraq ee gobolka Sool.